maalin maalmaha ka mid ah faras xawaaro sare ku socda ayaa soo abbaaray waddada tuulo yar. ninka faraska saaran wuxuu u muuqday mid u socda meel ay dan muhiim ah kaga xidhan tahay. nin kale oo waddada dhinaceeda qutumay ayaa u dhawaaqay, wuxuuna ku yidhi, xaggee baad u socotaa? ninkii faraska saarnaa ayaa u jawaabay isagoo leh, ma garanayo ee faraska weydii. qisadani waa mid da'weyn, dabuubteeduna ay daahsoon tahay. waa mid xambaarsan xikmad aad u da'weyn. farasku wuxuu u taagan yahay tamarta dabeecadaheenna. qisaduna waxay ka sawir bixin geeddi socodka nolosheenna. waa mid ka hadli dabeecadaha aynu caadaysannay ee maamiya habnololeedkeenna. dabeecadahaas oo aan ka dhalan dhimirsanaanteenna, balse ka dhashay bay'adda aynu ku nool nahay iyo ficillada joogtada ah ee aynu u warhayn. farasku horay ayuu ku wadaa isagoo xaggan kaa wadi, xaggana kugu simi. xawaarihiisuna waa mid joogto ah. xitaa ma garan karno sababta ka dambaysa. haddii aad isweydiiso marba marka ka sii dambaysa ujeeddada socodkan aan joogsiga lahayn, waxaa suurtagal ah inaad mar uun hesho jawaabteeda. balse inaad isweydiiso waxaa ka horreeya inaad aragtid waxa taagan. arrinkan gudubtiisu waa mid ka soo bilaabatay meel fog. waa mid na lagu soo ababiyey inaan sidaa u noolaanno. mid xusuusnaaw, marka hoggaanka noloshaada ee cid kale gacanta ku hayso, si walba oo uu xawaaraha orodku u dheer yahay, haddana taasi meelna kuma gaadhsiiso. waa inaad barataa sidii aad hoggaanku ugu qaban lahayd naftaada. faraska ku sidana aad xakamaha u qabato, una jihayso dhanka aad dooni. adiga ayaa ah maamulaha noloshaada. adigaana weligaa maamulo ka ahaa. haddaba bilaaw inaad u dhaqanto sida qof noloshiisa xakamaha u haya. tamartaadana u jihee qabashada ficillada u horseeday noloshaada hore u socod. taasi waxay kuu xaqiijin guusha aad higsan. waa wakhtigii aad noqon lahayd maamulaha noloshaada.